asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat daawadayaal iyo dhegaystayaal meel walba oo aad ka daawanaysaan ku soo dhowaada barnaamij kale oo aan uga hadlayno arrimaha xanuunka coronaviruska. barnaamijkayaga maanta oo aad hadda si live ah aad uga daawanaysaan barta St. Cloud Somali TV ayaa sidoo kale isaga oo maqal ahna waxaad ka dhagaysan doontaan idaacadda jaaliyadda Soomaalida ee magaalada St. Cloud KZYSLB oo laga dhagaysto muujada 105.1. barnaamijkan oo ah barnaamij aad u muhiim ah oo aan uga hadlayno arrimaha xanuunka coronaviruska ayaa waxaa noogu marti ah Asli Aadan Ashkir oo iyada maanta barnaamijkan nagala qayb qaadan doonto. Asli ayaa waxay tahay la taliye hay-adda Previa Health oo xafiis ku leh magaaladan St. Cloud iyo sidaas oo kale magaalooyinka mataanaha. waxa ayna aad uga caawisaa hay-addaasi dadka in ay helaan caafimaadka gobolka Minnesota ee loo yaqaano Minshore. idaacadda KZYSLB iyo Previana marar badan waxaanu u gudbinay fariimo la xiriira caafimaadka ama sida ay kaarka caafimaadka ay ku heli karaan iyo sidaas oo kale fariimo la xiriira xanuunka coronaviruska. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan barnaamijkan aan ku soo dhaweeyo live-ka ah. Asli ku soo dhawow, aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa inaad barnaamijkan nagala soo qayb qaadatid. guud ahaan aniga iyo dadka dhagaystayaasha ahba bal inta aanan u gudbin xaaladda arrinta hadda taagan ee coronaviruska waxaad uga warantaa dadka dhagaysanaya Previa iyo hawlaha Previa Health iyo hawlaha ay u qabato dadka ku dhaqan gobolka Minnesota. aada u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin wada salaamay dhammaantiinba dhagaystayaalka iyo daawayaashaba. Previa Health waa hay-ad abuurantay 2013 markii Obamacare la hirgeliyey wadankan laga hirgeliyey. waxaana loo abuuray in lagu caawiyo dadka reer Minnesota inay helaan kaarka caafimaadka. marka hadda waxay shaqaynaysay muddo 7 sano ah. St. Cloudna waxay ka mid tahay meelaha ay xafiiska aan ku leenahay. sidoo kale xafiisyo waxaan ku leenahay Twin Cities-ka ama labada magaalo ee mataana ah waa Minneapolis iyo St. Paul. sida aad la socotiin dad badan ayaa loo ogol yahay inay qaataan kaarka caafimaadka. hase yeeshee ma sahlana inuu qofka isaga keligiis intuu computerka galo uu helo. sidaa darteed Previa Health waxay diyaarisay dad Soomaaliyeed oo afka Soomaaliyeed kugula hadlaya, dhalin Soomaaliyeed, dhalinyaro xirfadlayaal ah oo si lacag la-aan ah qofka ku caawin kara. baahida kaarka caafimaadka loo qabo maanta maalinay ka badan tahay ma leh oo uu jiro xanuunkan coronavirus. waxaa la ogolaaday hadda qofka in loogu buuxiyo xataa taleefanka, inuu qofka taleefanka soo galo oo sidaas uu kaarkiisa ku helo. taleefanka aad wici kartiin nambarkiisa waxaa waaye 1-855-566-773. taleefankaasaa wacaysaa maalin walbo isniinta ilaa iyo sabtiga 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. marka halkaas waxaa idinkugu diyaar ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo idinka caawinaysa inaad heshaan kaarka caafimaadka. sidoo kale kaarka caafimaadka kaliya ma aha, waxyaabaha kale aan sameyno waxaa ka mid ah inaan bulshada ka wacyigelino hadba arrimaha caafimaadka ah ee markaas jira oo aan isleenahay dadka bulshadeena way ka faa'iideysan karaan. marka maanta sidaasaan uga hadlaynaa arrinta maanta dadka haysata oo ah coronavirus. waayahay, aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa Asli adeega aad u qabataan dadka reer Minnesota, dadka hadday yihiin kuwa ku dhaqan magaalooyinka Twin Cities-ka iyo magaaladan St. Cloud oo hadda sida aan
qiyaasayo xafiiskiinu uu ka mid yahay xafiisyada ugu waaweyn ee ka caawiya dadka buuxsanaya kaararka caafimaadka. waxaan ka shaqeeyaman jiray mararka qaarkood health and human serviceka ee magaalada St Cloud Strange County. xafiiskiinana waxa uu ahaa xafiiska ugu ballaaran aan oran karo ama mid ka mid ah kuwa ugu ballaaran oo dadka ka caawiya buuxsashada caafimaadka. bal wax yar waxaad ka hadashaa xafiiskiina aad ku leedihiin magaalada St Cloud iyo waxa aad u qabateen dadka halkan degan inkastoo xafiiskiina weyn uu ku yaalo Minneapolis. horta xafiiska St Cloud noogu yaalo waxa uu reer St Cloud ugu faa'iido badan yahay waxa weeyaan waxaa ka shaqeeya dad reer St Cloud ah. marka qofka aad u tagaysid oo aad khidmadda ama serviceka ka raadsanaysid hadduu yahay qof isla degmadaada degan waa arrin ma aragtay ku dhiirigelinaysa. marka dhalinyaro reer St Cloud ah oo carbisan oo tababarka qaatay ayaa meesha diyaar idinkuga ah oo afkiina Soomaali idinkula hadlaaya oo idinka caawinaya xataa haddii qofka uusan xaq u helaynin ku sheegaya fursadaha aad leedahay oo kala duwan oo kaarka aad ku heli kartid. marka waxaan aad ugu faraxsanahay in ay noo suura gashay in xafiiskaas aan ka hirgelino St Cloud oo dad badan oo annaga ah ay hadda ay degan yihiin. yaabaa dadka qofka markuu wadanka ku cusub yahay waxa laga yaabaa luqadda inay xoogaa dhib ku noqoto kale. haddii aad heshid qof afkaaga kugula hadlaayo oo wixii aad u baahdeedna kuu qabanayo daryeelka u baahneed kuu fidinayo waa ilaahay mahadii weeyaan. sidoo kale xafiiska wuxuu u dhow yahay meel oo dadka ay kasoo raadsadaan khidmooyin kale ama services kale sida driving license meesha laga qaato. marka meeshaas xafiisyadaas waad garan kartaa waa xoogaa xataa kiradooda waa qaali laakiin sababta aan u qaadan waxa weeyaan qofka hadduu meesha yimaado inuu dhowr khidmo oo service uu heli karo. marka alxamdulilah waa ku faraxsanahay inaan reer St Cloud aan wax la qabano. aad iyo aad ayaan annaga idinka mahad celinaynaa adeega ballaaran ee aad u qabataan dadka gobolka iyo gaar ahaan hadda kuwa magaalada St Cloud. aanu u gudubno arrinta ama mawduuca maanta aanu ka hadlayno oo dabcan ah arrin maanta qof walba oo adduunkan jooga waxaan malaynayaa way yar tahay caalamka wax dadka oo dhan ay mar qura ay ka wada hadlaan oo saameyn adduunka oo dhan ku samaysay. waa xanuunkan cusub ee COVID-19 ama coronavirus oo asalkiisa ka yimid wadanka China laakiin maanta wadan walba oo ka mid yahay wadankii aanu ka nimin asalka Soomaaliya la hadal hayo. gobolka Minnesota wasaaradda caafimaadka horena waa ula shaqeyn jirtay haddana xiriir dhow ayaad la leedahay. maxaad nooga warrami kartaa gobolka Minnesota saameynta uu hadda xanuunkan ku hayo iyo wasaaradaha kala duwan ee gobolka Minnesota si ula macaamilayaan xanuunkan? xanuunkan waa sida u sheegtay xanuun yaqaana gobol gaar ah ma aha xanuun ku dhaco dad gaar ah ma aha waa xanuun saameeyay dunida afarteeda gees wuxuuna abuuray cabsi aad u badan iyo baqdin iyo walbahaar oo dadkii oo dhan dunida wada haysta maanta. waxaa isweydiin karnaa maxaa xanuunkan muxuu kaga duwan yahay xanuunada kale. tan ugu horeysa waa taa sheegtay oo waa xanuun cusub oo isagoo dhanba bishii December 2019 ayuuba soo bilowday. marka hadda 5 biloodaaba hadda uga dhammaatay. waxana markuu cusub yahay lama yaqaano oo si fiican looma yaqaano dhaqankiisa iyo wuxuu keeni karo iyo sidii loola dhaqmi lahaa. marka cusaybkaas uu cusub yahay horta cabsi way noo keentay. tan labaad cudurkan waa cudur si degdeg ah u faafa sida la socotiin qofkii ugu horeeyay oo Mareykan 21 bishii January oo hadda 4 bilood oo kale ay kasoo wareegtaa lagu arkay. maantana waa ogtihiin Mareykanka 100 milyan iyo wax la jiro ayaa la marayaa inta qof oo inta la baaray laga helay. inkastoo la leeyahay wayba ka badan tahay intaas sababtoo ah waxaa jira dad badan oo xanuunka aanba ka cabanaynin laakiin haddii la baaray laga heli lahaa. xanuunkan waxa kaleeto xanuunada kale kaga duwan yahay waa xanuun dilaa ah. waa ogtiin 75,000 ayaa Mareykan kaligeed la barayaa hadda inta uu geeri u sababay. waxaana la sii project gareynaa ama laga hadlayaa in tirada intaas ay aad uga badan doonto
waa xanuun aad iyo aad dilaa u ah khaasatan wuxuu aad khatar ugu yahay dadka waayeelka ah iyo dadka la nool cudurrada sida sokortoo kale iyo karkoo kale neefta qofka qaba maxay ahayd kansarka dadka qaba dadka aidiska qaba dadka cudurradanayta ma aragtay chroniga ah la nool iyo qofka waayeelka ah hadday labadaas isugu darsanto aad iyo aad ayuu khatar ugu yahay inuu dadkaas u keeno geeri arrinta kale cudurka ku saabsan waxaa cudurkan wax daawo ah ma laha cudur marka daawadiisa la garanayo waa hadduu kugu dhaco waa iska ma aragtay muddo ka badan waa laga bogsanayaa ilaa iyo hadda cudurkan daawadiisa lama hayo tan shanaad ugu dambeys waxaa cudurkan tallaal looga hortago ma laha marka shantaas arrimooda cudurka waxay ka dhigtay cudur dunidoo dhan ay ka qaylisay meel kastoo la joogo marka tallaabooyinka oo Minnesota ay qaaday kama duwana tallaabooyinka qaranka inkastoo ay tallaabooyinkooda ay qaadeen muddo ku habboon oo xoogaa dhaqsi gobornarkeena uu go'aamadii uu gaaray muddo dhaqsi ah uu gaaray taas oo marka sababtay inay Minnesota ka mid noqoto gobollada tiro ahaan ka yar inta qof lagu arkay iyo inta 10,000 way ka yar tahay hadda inta laga helo cudurka weli baryahan dambe kor u soo kacday sababtan waxa weeyaan waxaa suuragal noqday in dad badan la baaro marka wax dad badan markii la baaro oo waxa weeyaan natiijadu waxay noqonaysaa in dad badan la helo geeridana ma aragtay ilaa 500 marayna meesha Mareykan 75,000 la maraayo marka Minnesota waxay ka mid tahay ilaa iyo hadda meelaha xoogaa la leeyahay way ladan yihiin hase yeeshee haddii la dabciyo arrimaha aan ka wada hadli doono oo kala fogaanshaha dadka inay kala fogaadaan iyo dadaalka dheeraadka ah waa laga yaabaa inay tirada si dhaqsi ah isu bedesho oo ay kor u kacdo marka aad iyo aad ma aragtay gobolkeena caafimaadka iyo gobornarka iyo bulshada iyo dadkoo dhan ay u wada shaqaynayaan waxa laga wada dadaalayo waxa waaye sida dadka ma aragtay looga badbaadin lahaa cudurka dilaaga ah waaya magaalada Minneapolis iyo Twin Cities-ka uu ku badanayay gaar ahaan qaar ka mid ah degmooyinkooda laakiin hadda waxaa ku soo darsoontay degmadan Stevens County la yaab miyay kugu noqotay waa ogaa waxaad ka mid ahayd mas'uuliyiintii markii ugu horeysayba arrintan nagala soo xiriiray gaar ahaan dhinaca idaacadda in bulshada la wacyigeliyo fariimihii Previa Healthna way ku jiraan la yaab miyay kugu noqotay dadka numberka zaa'idka ah ee hadda St. Cloud laga helay bal ka waran arrintaas haddii cudur cusub markuu yimaado kolley wuu siqayaa marba maalinba meel ayuu u guurayaa waa la filayay in uu magaalooyinka kale gaaro hadda county ahaan Hennepin countiga Hennepin oo anigana aan deganahay ayaa ugu badan inta laga helay gobolkan Minnesota dhawaan waxaan maqalnay in gobolkiina Stevens County iyo Wilmer labadaasba ay ku soo darsameen labadaas magaalo oo ayagana ah laba magaalo oo dadkeena ay joogaan ayna ka shaqaystaan lagana yaabo shaqooyinka ay qabtaan in ay ma aragtay noqdaan meelaha uu ku bilowdo kale hadda Wilmer oo kale waxaan maqalnay Soomaalida meesha ay ka shaqayso oo Turkiga lagu hagaajiyo in ay tahay meel oo spot oo dad badan oo ka shaqeeyo uu ku dhacay marka meesha dadka ka shaqeeyo markuu ku dhaco cid kastoo joogto Soomaali ha noqoto Arab ha noqoto cadaan ha noqdo in cid ku dhacaya marka wax la yaab leh ma laha sidaan horeyna isla markiiba kuula soo xiriirin waxay ahayd dadka inaan la sii baraarujiyo la wacyigeliyo loo sheego sida ay arrintan uga digtoonaan karaan kulley waa idin soo gaaraysaa laakiin maxaa qaban kartaa marka qofka markuu og yahay waxa cudurka uu yahay iyo siduu u fido iyo waxa uu qaban karo insha Allah waxa la filayaa ma aragtay hadii Ilaahay idmo in laga badbaado waaya meelaha la leeyahay hadda uu ka fiday waa meelaha shaqaalaha muhiimka ah ay ka shaqeeyaan sida kuwa cuntada sameeya ama cuntada soo saara magaaladana hadda goobaha uu ka fiday waxay u badan yihiin goobaha sameeya hilibka ama cuntada gumaraatoraha gobolka khudbado badan buu ka jeediyaa isbuuciiba mar ama arrimahan aad buu uga hadlaa maxaad
laga filayaa hadda gobolku inay bilaabaan arrimahan warshadahan ma keeni karaan inay yaraato ama dib u dhacdo furitaankii la rabay in la furo qaybo kale oo ganacsiga ah? maxaa nala wadaagi kartaa maadaama aada ugu dhundaloshid wasaaradda caafimaadka iyo howlahan? wallahi horta go-aamada markuu gaarayo governorka la tashi badan uu sameynayaa waxyaabo badanna waa la eegayaa qubaraa badanaa la shaqayso ha noqdaan kuwa caafimaadka ama ha noqdaan kuwa ganacsiga xaggiisa ka eegaya ha noqdaan kuwa rabo in dhaqaalaha gobolka uu soo noqdo marka talada hadba waxay ku xiran tahay iyo iyadoo haddana uu eegayo ma aragtay waddan ahaan jihada uu waddanka ku jihaysan yahay muxuu waddanka rabaa in la qabto yacni maraykan guud ahaan marka waxyaabahaas oo dhan uu eegi doonaa laakiin kolley hal wax baa la ogyahay haddii hadda guri joogistan iyo guri ka shaqayntan iyo inta la furo oo dadka xoogaa la yiraahdo haye aan isyara furfurno mar walba waxaa loo diyaar noqonayaa in tirada ay kor usoo kacdo intii xanuunka intuu ku dhacay inuu kor usoo kaco ayaa diyaar loo noqonayaa marka governorka kolley go-aamada uu qaadanayo isaga waxay ku xirnaan doontaa hadba wuxuu dan u arko in bulshada ay dan u tahay iyo gobolka wixii dan u ah iyo wixii waddanka dan u ah waa jiraan gobollo already bilaabay inay xoogaa isfurfuraan annaga hadda ilaa iyo bishan may 18 ayuu yiri gobernatoraha sidaas sida aan hadda nahay aan iska yara ahaano already hadda tiradii kore usoo kacday insha allah waxaana mar walba wanaagsan annaga haddaan nahay dadka gobolka ku nool madaxdeena amarada ay bixiyaan talooyinka ayna siiyaan ma aha talooyin fudud waa talooyin cilmi ku salaysan waa inaan qaadano oo markaa hirgelinteedii aan ka qayb qaadano waaya barnaamijkan aan badanaa sameeyo dadku way soo wici karaan qofka raba inuu isoo waco oo weydiiyo su-aal asli waa qof waad arkaysaan taytalo kala duwan bay wadataa waa caafimaadka ayay qabiir ku tahay wasaaradda caafimaadka way la soo shaqaysay hay-ad kaararka caafimaadka hadda buuxisa ayay la taliye u tahay wax badanna way idinla wadaagi kartaa marka qofka raba inuu su-aal weydiiyo nambarka shaashadda idinka muuqda oo ah nambarkayga gacanta ayaad kasoo wici kartaan gaar ahaan bal dadka hadda ku dhaqan magaalada St Cloud iyo Estrines County oo sidaan ognahay nambarkooduna hadda tira ahaan dadka uu ku dhacay la leeyahay aad bay u zaa'ideen su-aalo badan oo aniga naftigayga waxaa jira la isoo weydiiyey ayaamahan qaar ka mid ah waxaan ka xasuusta waa weydiin doonaa haddaad idinku aad jeceshiin barnaamijka nagala qayb qaadataan oo asli aad su-aal weydiisaana waad insha allah waadna soo wici kartaan aan u soo dhawaado xanuunka guud ahaan talagelyo badan ayay dadka bixiyeen waxaa tahay qof aqoon-yahana dhinaca caafimaadka waxaa tahay qof dhaqanka soomaaligana yaqaana bulshadeenna gaar ahaan hadda magaaladan St Cloud waxaa la yidhi aad buu ugu fiday waxyaalo badan baana sababay qaar ka mida ay tahay dadkii oo dhaqan ahaana iska dhagatiray iyo goobihii shaqada kuwa ka soo qaado iyo kuwa u gudbiya reerahii iyo qoysaskii maxaad ka oran lahayd arrimaha sida uu hadda xanuunku ugu fidayo bulshada Soomaalida dhexdeeda gaar ahaan magaaladan aan ka hadlaya St Cloud? anaka ma aragtay xanuunka hore siduu u fidaa waa inaa ogaataa dariiqa uu ku fido marka dariiqa uu ku fido aad taqaanid ayaad iska ilaalin kartaa xanuunkan waa xanuun labada qofka buka uu qaadsin karo qofka kale ee u jirsada wixii ka yar 2 yaardi ama 6 dhudhun wuxuuna ku fidaa dhibcaha ka yimaada markuu qofka qufaco iyo qofka markuu hindhiso marka 2 yaardi waxa loo yiri waxa weeyaan hindhisadaada iyo qufacaaga dhibcaha la socdo ma safri karaan in ka badan 2 mitir marka 2 mitir hadaa jirtid macnaheedu waxa weeyaan qofka hindhisadii marka way dhacaysaa kuma soo gaarayso sidaa darteed waxaa la yiri dadka hala kala fogaado 2 mitir iyo ka badan hala kala fogaado dadkana waa ogtahay waxaan ku wada noolnahay badana guryahan apartmentiska ah oo isu dhow oo tira ahaan familiyaalkeena waa familiyaal waaweyn oo ma aragtay waxaa laga yaabaa inay guryihiin ugu yar yihiin oo xoogaa ciriiri uu jiro marka
waxaa dhacaysa markaa in aysan suuragelin arrintii ahayd in la kala fogaado suuragalnimadeedii ayaa xoogaa adkaanaysa iyo annagoo ah bulsho isjecel oo mar walba isu taga dariska kuu soo wareegayo qof saaxiib ahoo kuu imaanaya qof aad casuntay oo aad wax wada cunaysaan marka arrimahaas oo dhan marka waxa weeyaan dariiqa uu sida dhaqsaha ah ugu fidi karo xanuunka marka wacyigeliyada badi aan samayno waxa weeyaan dadka inaan la socodsiino dariiqa uu ku fido si qofka markaas uu isaga ilaaliyo in uu qofka usoo jirsado in ka yar 2 mitir sidoo kale qofka in uu xirto afxir ama mask sanka iyo afka daboolaya uu xirto si oo ma aragtay wixii asaga candhuuftiisa iyo dheecaanka afkiisa ka yimi uu qofka kale uu u dhow uga ilaaliyo oo uusan u gaarin sidoo kale qofka mar walba inuu farihiisa ma aragtay faraxalashadaas oo ah biyo iyo saabuun ugu yaraan 20 ilbiriqsi iyo ka badan marka faraxalashadaas iyagoo sawir ahna meel kasta waa la isku tusay faraxalashadeena annaga caadiga noo ahayd oo weel intaan biyo kusoo shubano aan faraha wada gashanayna ma aha waxaa la sheegaya waxa weeyaan in saabuun aad si fiican ugu faraxalatid sababtoo ah haddaad hindhistid ama aaqufacdid dhibcahaasayt viruska dhibcahay la socdaan dhibcihii waxaa laga yaabaa inay miis dushiisa ku dhacaan inay gidaar ku dhacaan marka qofka waxaa laga yaabaa inuu taabto taabashada haddaad taabatid waxaad farahaada ku qaadanaysaa viruska meeshuu ku dhacay marka afkaaga haddaad taabatid ama sankaada aad taabatid ama indhahaada aad taabatid inkastoo indhaha aan weli aada loo hubin adiga sanka iyo afka haddaad taabatid waxaa laga yaabaa inaad sidaa cudurkii aad ku qaadid marka faraxalashada la badinayo waxay suuro gelinaysaa in wixii farahaada meel kastoo aad taabatay kasoo raacay aad ma aragtay aad biyaha iyo saabuuntaas aad isaga dhaqdid oo isaga nadiifisid mar walba taabashadaasayta miis keliya ma aha waxa meelo badanaa taaban kartaa nalaa shidi kartaa qof kale kaa daba imaan kara wuu baktiin karaa nalka meeshii aad taabatay oo hadday farahaada lahaayeen viruska uu wata waa kaga tagtay qofkii kaa dambeeyana markaa wuu qaatay isagana marka dariiqyadaasayta badan qofka markuu fahmo ayuu wuxuu isku dayayaa in uu siduu markaasayta uu uga nabadgeli lahaa inuu raadiyo haddii xataa uusan qofka fool xir ama mask uusan haysanin oo hindhiso ay ku qabato dadka hadda wadankan aan ugu nimi caadadooda buwaayo hadda iyagoo hindhiso ay qabato qofka intuu xusulkiisa sidaa yiraahdo sii jeesto sidaa marka waxa weeyaan ka ilaalina qofkii kale inuusan gaarin inay qoyaankii afkaaga kasoo baxay waxay ka mid tahay aadaabtayba ka mid tahaybo ma aragtay in aad qofka haddaad hindhisaysid ama quficaysid marka annaka ma aragtay dariiqa aan u noolnahay meelaha aan deganahay oo iska ciriiri ah dad wadanka dhawaan yimiyaan nahay guryo waaweyn oo lagu kala dhuunto ma lihin marka laakiin kolley dadaalka ma aragtay faraxalashada ha noqoto afxirka ha noqdo kala fogaasho intii la kala fogaan kara ha noqoto in hadda marka la yiri qof walba gurigiisa ha joogo dadkeena waxaa arkaysaa okay gurigayga aniga waa jooga dabadda inaan u baxo waa ka joogsada laakiin waxaa kuusoo wareegaya jiiraankaaga joog macnaheeda waxaa laga wadaa adiga iyo caa'iladaada ma ogi qof kaloo dabad kaaga imaada inuusan jirin laakiin marka oo qofka uu kusoo wareego wada fariisatiin oo shaaha wada cabteen ani gurigayga kama bixin cudurka qofki waxaa kuu keeni kara qofka yimiyaa kuu keeni kara cudurka sidoo kale dadkeena wuxuu aad ugu dhacayaa dharka haddaa dhaqanay sidoo kale xagee dharka ku dhaqanaa badanaa laundriga guriga nooguma dhex yaallo waxaan aadaynaa meel laundry oo dadka ay dharka ay ku wada dhaqdaan meeshaas dhowr qofaa isugu imaanaysa marka lama oga lianna cudurkan hadda waxyaabaha kaloo la ogaado waxaa weeyaan dad badan oo cudurka qaba oo xanuun calaamada aan tusaydinaa jiro oo qufacna aan lahayn qandhana aan lahayn laakiin fidin kara marka waxaa ku garatid ma laha qofka kale waxaa kaga garatid ma laha xanuunba maba hayaba marka meelahaas laundrygoo kale waa inaan isqorshayno oo ma aragtay waqtiyaalka dambe xataa habeenkii oo saanta ay degto oo ay isleedahay dad kale markaas ma joogaan inaad timaadidoo kale meelihii hoosoo laisugu imaanayo oo lagu sheekeysanayo oo dadka community roomka waxa la yiraahdo isagana inaan iska joojino tacsiyooyinka qof hadduu dhinto hadda ma aha waqti laisku tago oo dadka tacsida ay isku tagaan ma aha marka dariiqyadaas oo dhan ayaa maxay aheeday laga yaabaa inay annaga nooga dhigto khatar xoogaa inaan xanuunka aan kala qaadno
oo haddii aan kala qaadnana markaas uu aad u fido waxaa kaloo waaya hadda baryahan dambe sheegayaa arrinta la dhaho karantiinka dadkeena kelimadaas karantiinka way necab yihiin waxaa la socdo marmar haddaa maqashid qofkaas waa la karantiina wuxuu isleeyahay acuudu billah muxuu qabaa qofkan karantiinka waxan ma aha wuxuu ka mid yahay dariiqyada lagu hakinayo cudurku ka mid yahay waxa weeyaan qofkan waxaa loo karantiinay in lala socdo xaaladiisa caafimaad oo la ogaado qofka la karantiinayo horta marka hore waa qof la kulmay qof kale oo xanuunka qabo marka qofka xanuunka qabo haddii aad la kulantay oo lagu karantiino macnaheedu ma aha inaad adiga xanuun qabtid macnaheedu waxa weeyaan in adiga la rabo in lagula socdo waa intaasuu xanuunka kugu soo baxaye qof kastoo la karantiinana xanuunka kuga soo baxaayo dadka qaar waxay leeyihiin difaac fiican ayagoo qof xanuunka qabo la kulma haddana waxbana kama qaadan marka karantiinka wax ma aha mana aha wax in laisku ceebeeyo ama qofka lagu takooro ama caa'ilada lagu takooro qofka karantiinka kasoo baxayna waa qof la hubsaday wax xanuun uu qabana ma jiraan waaya aad baad ugu mahadsan tahay sharaxaada dheer ee aad naga siisay xanuunka siyaabaha ku faafo iyo waxyaalaha la xiriira ummadda Soomaaliyeed si ay aad ugu fahmaan oo u baahan iyada naftigeeda in loo ballaariyo ama loo faahiyo qofka raba inuu soo waco barnaamijka asli su'aal weydiiyo haddaad ku dhaqan tahay St. Cloud ama gobolka Minnesota ama meel walba Mareykanka ka mid ah waad naga soo wici kartaa nambarka shaashada ka muuqda 612-232-38-66 waxaan rabaa asli markan balinan xogta hadda gobolka Minnesota ama wasaaradda caafimaadka arrimaha la xiriira xagga u helidda talaal yaanan dhihin baaris in lagu sameeyo dadka xanuunka looga shakiyey waxay soo martay marxalado kala duwan haddana waxaad moodaa inuu sidii hore uu ka duwan yahay oo cusbitaallo badan ay hayaan qalabkii iyo baaristii maxaad aniga ama dadka la wadaagi kartaa xaaladda hadda ay marayso in qofka iska shakiya dad baa isoo wacaya oo dhahaya nambarkii cusbitaalka cidna iga qaban mayso ama waa la isoo wacay baaritaan baa la iga qaabay jawaabtii weli ma helin qof baa wuxuu igu yidhi jawaabteedii waxaa la ii geliyey chartiga laakiin lama soo wicin inaan coronavirus qabo waana xanuunkeena waan qabay waxyaalo badan kulley waxaana jira culays badan baa jira cusbitaalaadkii iyo clinicii marka baarista iyo xaaladda hadda ay marayso iyo in gobolku uu u helay iyo cusbitaalaadka xal in si degdega loo baaro dadka jawaabtan hore laga siiyo iyo nidaamyada la isticmaalo qofka laga baarayo maxaad nala wadaagi kartaa horta berihii hore oo xanuunka u bilowday ma sahlaneyn in baaritaan markiiba la helo xanuunkaana sidaan hore u sheegay calaamadihiisa waa sida calaamadaha sida qof duray qabo kale marka qofka uu calaamadihii durayga isku arko waqtigan hadda la joogo waa inuu dareen galo lianna waxaa lagu jiraa waqti cudur calaamadaha durayga leh oo kale inuu jiro oo dilaa ah marka way wanaagsan tahay qofka inuu markiiba uu dareen galo oo uu is yiraahdo war waxaan ma coronavirus kiba nasiib wanaag hadda gobolkeena waxaa la leeyahay qof kasta oo u baahan inuu isbaaro oo qabo shaki inuu xanuunka uu calaamadihiisu isku arkay wuu heli karaa marka haddaad gashid website-ka wasaaradda caafimaadka oo kaleeto haddaad gashid waa helaysaa listiga meelaha uu qofka tegi karo oo baaritaanka laga helayo oo qofka uu ma aragtay si toos ah u tegi karo waa helaysaa waxaa kaloo hadda xataa kusoo korodhay in la yiri xataa qofka hadduusan lahayn insurance ama kaar caafimaad hadduusan lahayn baaritaankaasayt waa lacag la-aan qof kastaa la baarayaa laguma xiraayo inaa kaar caafimaad leedahay marka magaaladiina St. Cloud aniga hadda ma hayo laakiin hadda Central Care oo kale oo ah system aad u weyn waxaan isleeyahay inay dhowr meel ay samaysatay oo qofka lagu baari karo
marka dadka waxaa waa aad waxaa muhiim u ah inay dadka macluumaadkaas raadiyahoo kale adiga hadda liiska intaa soo heshid inaan raadiyaha dadka ugu celcelino ilan hal meel un haddii la waco overcrowd ay noqonaysaa laakiin dhowr meel oo kala duwan ayaa jira meel walba waxaa loo suubiyey dhowr meel oo liska lagu qaadi karo ma aragtay baaritaankaas lagu samayn karo marka axmedow way fiican tahay in aa weydiisid maamulkiina caafimaadka ha noqdo public health departmentkiina ama ha noqdo central care ama hay-adaha kale oo fidiya khidmooyinka caafimaadka in laga helo liiska inta meel oo la tegi karo kabacdina in dadkii ma aragtay la wacyigeliya aaday u fiican tahay xataa daaraha oo dhaadheer ama apartmentiska oo dadka soomaalida ay u badan yihiin in iyadoo af soomaali iyo english labadiba ku qoran darbiyada loogu soo dhejiyay dadka oo qofka marka uu arki karo hadba qofka beesha u dhow si uu u doorto inuu tago waaya haddii ilahayd ma waan weydiin doonaa waxaa si wanaagsan noola shaqeeyey gabdhaha soomaalida ee ka shaqeeya caafimaadka magaaladan kuwa degmada iyo kuwa cusbitaalka marka insha allah waa weydiin doonaa waa su-aal u baahan in jawaab loo helo haddii aad sankalood ku dhaqan tahay oo kale meeqa meelood ayaad u tegi kartaa laakiin hal number baan ogahay oo center careka oo hadda la waco oo baaritaanka ku sameeyo arrimaha hadda waxaa jirta qeyb ka mid ah organizationkiina Brave Health waxyaalaha aad qabataan waxaa ka mid ah inaad la wacyigeliyo bulshadii haddana arrinta hadda taagan ummadda dadka minority-ga waa aad buu ugu batay waana jeclahay arrintan inay nagala qayb qaataan dadka na soo wacayo sidee loo wacyigelin karaa bulshada soomaalida dadku way badan yihiin meelo kala balbalaaran kala fogfog baa la degan yahay methodkee ama qaabkee baad is leedahay asli bulshadii warku wuu u wada gaari karaa si ay wixii ay u helaan macluumaadka dhan ee ku saabsan coronaviruska waxyaalahan weli maqlayna waxaa ka mid ah qof duray qaba oo qof la jooga ku leh hargab baan qabaa oo qofkii dambe maalinta ma leeyahay xanuun coronavirus buu qabay qofkii waan ka qaaday marka waxaad moodaa ama inay bulshadeena isdhagatirayso ama inayan macluumaadkii iyo warbixintii ayan helin goobihii ganacsiyada way furan yihiin qaarkood xawilaadayaasha dukaamadii soomaalida xagga nadaafadda waxaad moodaa inayan la sinayn dukaamada kale ee gobolka hadda furan marka see bulshada soomaalida kula tahay fariimaha caafimaadka muhiimka lagu gaarsiin karaa horta dadaal badanaa jiro ma aragtay oo bulshadeena Soomaali Minnesota dadkeena dhulkan ku dhaqan ay qaadeen dhinac walba ha ahaado caafimaadkaba ha u badnaado maadaama xanuunkan xanuun caafimaadka la xiriiro u yahay sidaa la socotid annaga hadda markii ugu horeysaybo Saint-Cloud xaggeeda adigaan kula soo xiriirnay si aad ma aragtay aan kula sameynay macluumaadkii oo kaamil ah in aad u gudbisidoo kale oo waxayna ahaydba mar hore ahaydba intaan weli xanuunka uu sidan usii fidin waxaa jira fiidiyoyaala jira oo la sameeyey oo ka hadlayo arrimo kala duwan hadda annaga aad ma aragtay sorry ku soco website-keena Brave Health haddaa gashid www.brevehealth.com dhowr video oo af Soomaali ku hadlayaad arkaysaa xataa mid sida riwaayadoo kale loo sameeyey oo si uu qofka asagoo oo ma aragtay ku qoslaya haddana uu macluumaadkii saxa ahaa uu u heli lahaa TV-yada Somali TV Minnesota dhowr goor ayaan xagga diintana ka wareysanay dadka xagga maxay ahayd caafimaadkana ka wareysanay waxaad arkaysaa xagga xataa haddii la yiraahdo ganacsiga xataa sida ganacsatada iyo dhibaatooyinka soo looga siraad kori karo waa laga hadlay السلام عليكم برنامج بان كجرنا لايف ام برنامج كارتينا كقيب قادتي مسانا يسو وعدي برنامج بان كجرنا لايف marka aan kugu soo celiyo hadaad wixii sheegaysan aniga way raali noqo way marka macluumaadka markii laakiin dadka macluumaadka markay helaan waxa loo baahan yahay inay ku dhaqmaan dhaqankii haddaan qofkii uu yiraahdo kaleeto maanta xataa waxaan ka qayb galay
conference call ha conference call oo lagaga hadlaayay wadaado iyo koox caafimaad annagoo ah aan ka wada hadlaynay sida ay diinteena si toosan ay u qeexday oo rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam uu leeyahay ma aragtay qofka waa inuu dadaal walba la yimaadaa haddana wax walba uu ilaahay u tala saartaa dadaalkiina adoo la yimid aad ilaahayna tala saaratid marka dad badanaa waxay ku leeyihiin wixii aniga ilaahay ii garta waa igu dhacayaan waa run way kugu dhacayaan laakiin adoo isdhahaaya allah haddii aan dadaali lahaa inay kugu dhaxan maaha marka wallahi wacyigelinta waxaa weeyaan way badan tahay welina waa lasii wadayaayo maaragtay waa lasii dadaalayaa laakiin dadkayga waxaan rabaa inaan iraahdo wixii talooyin ah oo bahda caafimaadka idinkaaga yimaada ama dowladdiina degmada idinkaaga yimaada ama tan gobolka idinkaga yimaado dhigaha ha loo furo hana lagu dhaqmo waaya waxaana soo wacay danta dadka ah waaya waxaana soo wacay qof ka mid a dadka dhagaystayaasha ah ee barnaamijka ku xiran ku bilow walaal haddaad magacaaga nala wadaagi kartid halka aad joogtid iyo su-aasha aad qabtid ama arrintaanu ka hadlayno hadda coronaviruska iyo saameynta uu ku sameeyey bulshadeena gaar ahaan dadka hadda ku dhaqan maraykanka السلام عليكم أنا مكتئب وحالي كريم حسين وحن كسر اليوم قبل كمين أوكي مركب وحن ربي أصلي يا ربي إيمان سؤال فيديو ورتو مع سنت هاي مش كسوق بين سواحين مركب وحن ربي سؤال شيء وحويا مركب يدين مثلا كسوق قف كم يدبر شو مركب لجاية كبعدي ستيت كوسيلو وقام كرادت كله ويدت كاسب لك كله كونتاكت تريسينج سيلو سمية waayahay iminka maqla taasi dad weydiiyay aad baan maasantay waayahay su-aashaas intaadan ka bixin aan websada inay si fiican u maqashay u fahantay tusaale ahaan qofka waxa uu ka soo wacaya cabdikariin ee gobolka Maine wuxuu leeyahay dadka qofka laga helo xanuunka coronavirus sidee bay stateku u dabagalaan dadkii uu qofkaasi cilaaqaadka ama contactiga uu la yeeshay ama uu la lahaa waa su-aal muhiima waayahay qof kalena waan siinayaa inta aanan ku celin microfoonka asli waayahay qofka kalena soo wacaya magacaaga iyo su-aasha aad qabtid walaal axmed waan ku salaamay adiga iyo barnaamijka amada kugula jirta magacaygu waa maxamed waxaan rabay inaan ma aragtay su-aal weydiiyo tala bixinna ku darsado su-aashaydu waxaa weeyaan anigu waxaan ka mid ahay dadka ma aragtay laga helay cudurka coronaviruska waa gartay waxaan dareemay ugu horeyntii ma aragtay cunaha ee cuncunaya ama ma aragtay qufaca siyaabooyinkii kaloo la sheegaya dhammaan iskuma aanan arag neefta iguma degin andha badan ima qabanin meesha markaan tagay laba beri kadib markaan arrinkaas ku arkay weekendiga hore ahayd isniinta haddaa la ii sheegay jawaabtii lama soo wicin laakiin sidaa hadda ay ka hadlaysay waxaa la iigu soo diray myjaadka ama email ay iigu soo direen kadib myjaadkan ka fiiriye waan ku arkay inaan maaragtay detected noqday oo la iga helay laakiin se ilaa hadda waxaan marayaa maalintii 6aad wax siyaabo badan iskuma aanan arag aan ka ahayn qufacaasi marka hore marka siyaabihiisu inta la sheegayo meesha ku qoran bahalkan ma ka badan yahay waayahay su-aashaadu waxay tahay calaamadaha xanuunkan coronaviruska inta lagu sheegayo ma ka badan yahay adigu waxaa tiri dareenka keliya aan qabo waxaa weeye cunaha ay cuncunaya ha taasi waa taa waayahay raacsado tan kale waxaa weeyaan taa soo jeedin sida dadka lagu gaarayo bulshadeena horta ma aragtay siyaabo badan bay wax ku aan ma aragtay ku maqlaan idaacado badan ma lihin horta idaacadan keliya weeyaan waxa aanu ku gaarno oo ugu badan inta badan waxa kale iga waxaa weeyaan dee qoraalaha dadka loo geeya ama meelay ka arkaan ama istaalay ka soo qaataan dadka iyaga waxba ma akriyo marka waxaan ku maaragtay aan ku darsan lahaa in dadka lagu gaaro goobahooda ayadoo la ilaalinayo maaragtay distance-ka iyo waxyaabihii sharcidu loogu talagalay cudurkani
inay goobaha shaqada ama goobaha ma aragtay ay ganacsiyada ku leeyihiin laga wacyigeliyo oo si ma aragtay physical looga wacyigeliyo in ma aragtay ama haddii tan labaad in la tago guryaha ay ku badan yihiin ayadana sidaas loo wacyigeliyo because ayadoo la ilaalinayo ma aragtay wixii shuruuc oo loogu talagalay intaasaan ku talabarsan lahaa taasi waaya waa maqlaysaa baan u malaynayaa asli insha allah labadiinaba jawaabta halkan kama maqli kartaan dhinaca facebooka ama barnaamijka raadiya qof ka dhegeysan doona insha allah hadda laakiin dhinaca kale ka dhegeyso waxaana kaaga mahad celinayaa gaar ahaan haddaad magaalada sankaloor ku nooshahay arrintan dambe oo aad soo jeedisay oo anigu naftigayga mararka qaarkood hadda markaan isweydiiyey aan isiri alale armeyba ku haboonaan lahayd xaafadaha waaweyn oo soomaalidu degan tahay sida lancruise area xaafadaha weightback ay degan yihiin armey ku wanaagsanayd in dadka laakiin ogolaansho laga qaato kuwa guryaha leh oo warqada lagu dhejiyo waan ogahay wax lama qaybin karo iyada naftigeeda dad badanna isma raaci karaan laakiin talada iyo tala soo jeedinta waxaan u daynaynaa asli waa mahadsantahay waayahay kusoo dhowow asli waa maqlaysaan malaynay labada su-aalood cabdikariim waa mahadsan tahay su-aal aad iyo aad muhiim u ah ayuu weydiiyey oo ah dabagalka lagu sameynayo qofka xanuunka laga helay cid allaale ciddii uu la yeeshay xiriir marka haddii guri aad degantahoo kale qofka xanuunka laga helay dadka gurigaasoo deganoo dhan waa contacts oo xiriir way la yeesheen oo iyaga marka waxaa lagu xisaabayaa inay ka mid yihiin sidoo kale waxaa waraysi lala yeelanayaa cabdikariim naftiisa yaa la shaqeeyo xagga shaqada laga waraysanaa yay israaceen baryihii ugu dambeysay marka qofka bani-aadanka recallkiisa inuu xasuusto yaan is aragnay ma aragtay baryihii ugu dambeeyey xanuunkan hadda waxaa la leeyahay 2 ilaa 14 cisho ayuu ku gudbaa incubation periodka sababta karantiinka looga dhiga 14 beri waxa weeyaan ugu dambeyn wuxuu soo baxayaa 14 beri marka uu qofka u haleelo xanuunka ma lagu wareysanayaa maxay yahay baryihii ugu dambeeyey 7 beri ha noqoto oo dadka qaar hadda waxay leeyihiin cilmi baarisyada qaar waxay leeyihiin maalinta 3aad ayuu soo baxaa oo qofka uu haleelo qaar waxay leeyihiin ilaa maalinta 5aad qaar ilaa maalinta 6aad hada ugu badnaan waa 14 kaas cisho marka qofkii la rabaa inuu recallkiisa uu yiraahdo shalay horta dadka adiga kula degan waa automatic dadkaas waa contacts waa la qoranayaa iyaga dadkii kale ku soo siyaartay ama aad israacdeen ama aad wada shaqayseen dadkaas oo dhan marka laga qorayaa magacyadooda iyo taleefanadooda marka public health department marka oo leh county walbo waxay leedahay public health departmentkaas qeybaa jiro oo contact tracingkaas xisaabsan ayaga marka dadka macluumaad u diraya haddii qofka email uu leeyahay macluumaadka emailka ay ugu dirayaan waxaa la leeyahay oo kaleeto waa haddii aad isku aragtid calaamadihii loo sheegaa oo coronavirus haddaad isku aragtid taleefankan la soo xiriir la soco temperaturekaada ama kulka jirkaaga la soco maalin walba ilaa maalin heblaayo waxaa jiro departmentka waxay leedahay dad laga yaabay 2 cisho ama 3 cisho mar inay qofkii soo wacaan ay wareystaan haye sidee tahay ma waxbaa kugu soo kordhay ma fiican tahay 14 beri haddii la gaaro oo qofkii xanuun laga waayo oo waxba kusoo bixi waayaan marka sidaasuu qofkii karantiinka uga baxayaa oo u wadanaya hooshiisii qofka xanuunsan oo asaga xanuunka laga helay protocol jiro in la yiraahdo maxay aheeday adiga waa xanuunkii hadda waa laga waayay asagana baaritaan oo la qaado oo negative soo baxaya jiro marka waxaa la rabaa for example waxay dhahaan qofka inaa qandho laga waayo ilaa iyo 72 saac waa 3 days 3 beri inuusan qandho isku arkin qofka baaritaan markii la baarana uu negative noqday qofka asagana markaas waxaa la leeyahay wuu bogsaday marka sidaasaan arrintii cabdikariin ooga baxaya laakiin waxaa aad muhiim u ah inaanan qarinin dadkii aan la xiriirnay inaanan qarinin because arrintaas waxay muhiim ku tahay qofkii waxa kusoo bixi kara xanuuna kusoo bixi kara mana iska warqabo inaa xataa adiga aad xanuunsaneed markaa kulmaysay caa'iladaada of course way ka warqabtaa laakiin asxaabtii kale iyo jiiraankii iyo dadkii aad wada shaqaynayseen iyo maaragtay kulli maaragtay ma ogaan karaan marka sidaas waxa weeyaan u naxariiso dadka haddii xanuunka laga helo oo lagu weydiiyo contactskaada ama dadkii aad wada xiriir yeelateen min fadlag
isku day inaad xasuusatid cid kasta oo aad xiriir la yeelatay wax dhibaato ah ma laha arrintaas arrinta kaleeto oo maxamed uu na weydiiyey oo uu yiri aniga naftayda liiga helay wuxuu yiri aniga waxa kaliya aan isku arka waxaa waaye qufac yar yar oo dhuunta cuncun ah horta calaamadaha oo coronavirus 3 ayaa ugu muhiimsan sida hadda la sheegayo 3 waa qandho waa qufac iyo neefta oo dadka qaar ay ka cabanayaan inay ku dhigtay laakiin hadda waxaa dhacay ma aragtay inay la balaariyay calaamadaha ay dadka isku arkayaan waxaa kaloo hadda lagu daray qofka inuu dhadhanka iyo urta ay ka lumayso inuu dhadhanka iyo urta ay ka lumi karto waxaa kaleeto waa dadka aad ay u sheegayaan xanuun oo jirka dhan qofka uu burbursan yahay uu xataa rabinba inuu istaago inuu jiifo ma ogiye hadduu dhaqaaq is yiraahdo qofka jirka oo dhan uu burbursan yahay laakiin sida uu maxamed sheegay oo aad iyo aad ma aragtay aan u leeyahay waa ku mahadsantahay inaan nala wadaagtay calaamadahaas oo dhan in qof walba isku arka qasab ma aha qofaa mid keliya isku arki karo qandho keligeed isku arki karo qofaa qufac keliya isku arki karo qofaa 5 aan sheegay mise 6 aan sheegay hadda kulligood laga wada arki karaa marka qofba sibuu u haleelaa waxayna ku xirnaanaysaa sidaan isleeyahay qof walba difaaca jirkiisa inta uu la dagaalami karo xanuunkaanay haleelay marka nasiib wanaag adiga waxaa noqotay qofka wax yar lagu arkay waxaa xataa jira dad aan waxba lagu arkaynin laakiin haddii la baaro oo bulshada hadda waa la rabaa in la baaro oo surveillance la yiraahdaa dadkoo dhan inta la iska dhexgala la baaro for example 1,000 qof ayaa la rabaa in la iska baaro oo mid ka mid ah aan calaamad lahayn waxaa laga yaabaa ina 100 ama 200 ka mid ah ay positive noqdaan laakiin wax calaamad aan lahayn marka qof kastaba inuu calaamadihii oo dhan presentation ku sameeyo ama laga helo qasab ma aha taas ma aragtay meeshaas oga baxaya arrinta uu yiri ma aragtay dadkeena sidii loo gaarsiin lahaa macluumaadka hadda waxaa jira wax la dhaho physical distance lama ogolo marka hore waa la tegi jiray oo wacyigeliyaal markaan samayn jirnay oo macluumaad kale xanuunayaal kale ku saabsan waa la tegi jiray daaraha ay dadka wada degan yihiin conference roomkan aan samaysan jirnay reservation dadkoo dhan isku imaan jiray shaaha la wada cabi jiray video baa la wada tusi jiray hadda laakiin waxaasoo dhan waxaa diidaya arrinta ahayd hala kala fogaado ayaa diidaysa marka hadda dariiqyada hadda la isticmaali karo oo waxaa ka mid ah conference calleska in la sameeyo conference call lines badan oo dadka ay ku wada sheekaystaan ay ku sheer gareeyaan xataa hadda arrintan uu maxamed hadda nala sheer gareeyey way fiican tahay ina ma aragta dadka ay ogaadaan oo ay ogaadaan in xanuunkan uusan isku mid ahayn oo dadkoo dhan isugu mid ahayn oo qofba uu si isugu arki karo xataa maalin dhaweeto waxaan maqlayay I think inay ahayd Washington DC gabar nurse ah oo gabar madow ah oo dadka daaweeyo isbitaalada ka shaqeeya ah inay tiri dadka madow aan arkayno sida uu dhac waa ka duwan tahay dadka kale tiri calaamadaha la sheegayo dhan inaan lagu arkin laga yaabaa oo qofka uu si degdeg ah intuu soo dhaco dhimashadiina markaa uu degdeg u dhinto marka waxaan waa cusub yahay xanuunka waa cusub yahay waxaa ku socdo cilmi baarisa ku socoto maalinba maalinta ka dambaysa macluumaadaas soo baxaya annagana waana muhiim inaan macluumaadka saxa ah aan la soconno oo aan kala soconno raadiyoyaasha laisku hadlayn karo hadda sida BBC doo kale iyo Voice of America haddaad dhegaysatid mar walba way ka hadlaan COVID-19 ama coronavirus macluumaadka ku saabsan aaday uga hadlaan waana macluumaad sax ah oo la hubo inay yihiin kuwa sax ah marka waxaa wareegayo macluumaad badan oo tashwiish dadka ku fura oo qalad ah marka kuwaasna in ma aragtay oo ku tripotenta ah in aan iska ilaalino inay ma aragtay na wareeriyaan oo ay dariiqii saxa ahaa naga wareeriyaan marka qofkii af ingiriisi hadda yaqaano kale any channel uu ka dhageysan karaa macluumaadka CNN uu dhageysan karaa kuwa localka dhageysan kartaa waxaasoo dhan macluumaadka sax waa ka heli laakiin qofka aan afka aqoonin waa la sameeyey videoyaal waa la sameeyey tviyada ma badnaa waa yar yihiin laakiin way jiraan adi dadaalka wuu socdaa marka qof kastoo naga mid ah oo dadkeena wax bartay ah oo khaasatan caafimaadka ama social serviceka ama wixii u dhow bartay aan ma aragtay bulshada aan la wada shaqeyno kulligeennaba meesha qof walba uu ka gaaro inuu dadaalka ma aragtay meel walba
aan dadaalka ku fidino insha allah. waayahay laakiin gobolku ma isleeyahay waxaa jira sida igu maqaalada ah dadaalo la samaynayo inay gobolku hay-addiinoo kale ah ama idaacadaha ay u helaan ama dhaqaale ama siyaabo ay ku dhiirigelinayaan inay fariimaha la badiyo ama dadka la inform gareeyo. marka ma isleedahay adigu hadda aniga marka aan fiiriyo anigoo idaacad ka shaqeeya warar badanna ka sheegana idaacadda, laakiin haddana waxaan dareensanahay in ku filan magaaladeeda madaxdeeda in ayan samayn in ay bulshada soomaalida ama minority ama bulshada oo dhan la wacyigeliyo maadaama wixii gobolka ay fariintu ka wada imanayso. tusaale ahaan xaafado badan oo soomaalidu ay degan yihiin waxaa laga yaabaa qoyskii inuu guriga ku xidhan yahay, marka qoyskiina in ayan nidaamkana maadaama uu cusub yahay in ayan maral hore la-aan tabaabushaysan haddii waxaan dhacaan oo guri aad ku xidhmatid xaggee ka helaysaa arrintan. marka su-aasha waxa weeye anigu naftigayga aan qabo ma jiraa dadaal la rabo in wacyigelinta bulshada gobolka oo dhan la kordhiyo oo dowladda kordhiso. wallaahi horta waddankaanayta aan nimi maraykanka ah wuxuu ku shaqeeyaa gobol walbo dad baa jira ay soo doorteen. dadka lasoo doortayna waxay masalayaan dadkooda ama nooc kasta ahaado ama soomaali ha ahaado ama cid kasta ahaado. marka waxaa la rabaa annaka horta inaan annaga iswinno in xafiisyo las furo oo danta bulshada soomaaliyeed hadda reer St. Cloud oo kale inay leeyihiin Somali St. Cloud Association oo kale inay samaystaan oo ayaga marka ay is abaabulaan oo ayaga ay dhaqaale raadsadaan. ma aha COVID-19 oo keliya ma aha, sidoodaba inay xafiis advocacy ama ayaga u hadla oo danahooda ka hadla inay gobolka uu leeyahay, taas idinku xiran tahay. dadka markaas meesha degan ee dadka wax bartay oo dowladnimada gobolkan waddankan iyo sida u shaqeyso ayay nagu xiran tahay. badanaa waxaa jira ma aragtay inaanan lahayn, waxaa laga yaabaa dad naga dambeeyey ama naga tiro yar inay naga habaysan yihiin oo meel loogu tooso ay leeyihiin, ama qofkana uu leeyahay ma aragtay uu og yahay marka arrin ila soo gudboonaato xaggeen aadaa xaggee xafiis oo aniga aan leeyahay oo qofkayga ah uu joogo oo afkayga ku hadlaayo oo arrintayda markaan u sheegay isla markiiba qaadaayo oo ka shaqaynayo waa halkii. hadda laakiin taas annakaana laga rabaa gobolka marka adiga isa soo habaysid oo aad barnaamij la timaadid oo suuragal ah oo ka bacdi marka gobolka waxaa weeyaan wuu ku dhageysanayaa. weli gobolka waxaa kula socda adiga ninkii degmada aad dooratay ayaa kula socda oo barnaamijka kula wada. marka barnaamijkii aad heshay kaba soo qaadbo lacagaa lagu siiyey inaad dadkaada u shaqaysid. waddankan haddana wuxuu kaloo ku shaqeeyaa lacagtii lagu siiyey sidii loogu talagalay ma ugu shaqaysid. haddii hal mar lagugu arko in wixii lagu dhiibay sidii lagugu talagalay aadan u bixinin ama ugu howlgelin, barnaamijkaadii oo dhan wuu fashilmaa. markaasaa waxaa lagu qaadanaa qof oo aan caadi ahayn oo danta bulshada aan ka shaqaynaynin. marka arrimahaas oo kaleetan inaan iska jirno annaga waa inaan ishabaynaa, waa inaan leenahay ani hadda ma aragtay xafiisyo private ah ama NGO yaal way jiraan oo dadka Soomaalida ay madax ka yihiin, laakiin xafiis weyn oo Somali community as such arrimahooda mana soo dhawa ku badanah. xafiis weyn oo annagoo dhan noo furan oo arrimaheenoo dhan ha noqdaan kuwa legal ah oo sharci ku saabsan, kuwa noqdo foomanka dadka u buuxiya oo haddii green card uu qofka rabo ama passport uu rabo, kuwa dadka diyaariya si uu qofka baasaboorkiisa u qaato, su'aalaha diyaariyo. waa ku arkaysaa dadka kale oo dhan waa ku arkaysaa way leeyihiin. annaga laakiin waa jira Minneapolis mar waa jira xafiis caynkaas ah, hadda wallahi meesha ku dambeeya ma aqaani, laakiin waxaa u baahannahay xafiis caynkaas ah oo danta guud oo Soomaalida oo dhan u furan, not shakhsi qof meel uu furtay ma aha. waa xafiis u furan danta dhan u furan oo anytime aniga muraad isoo galo, adiga ku soo galo, maxamed soo galo, cabdikariin soo galo, kulligeen aadi karno oo aan ku kalsoon lahay inaan leenahay annagay nagu xiran tahay taas, qof kale ma eedaynayno. waay mararka qaarkood dabcan arrimahaas waa dood kale, laakiin dadka qaarkood waxay ka cawdaan organisationada ay leeyihiin dadkan minority-ga qaarkood in ayan helin dhaqaalihii ay filayeen, laakiin waxay dib ugu soo noqonaysaa sida aad sheegtay dhaqaalaha qofka ama hay-adda sida u isticmaasho. haddii hay-addaasina shaqo fiican ay qabato waxay noqonaysaa mid
mar walba dhaqaalihii dowladda ka hesha hadday waxeedii oo dhan ay korgarisan yihiin. waxaan rabaa inaan bal su-aal kaa weydiiyo. hadda magaaladayada xanuunku meesha uu aad uga fiday waxaa la leeyahay waa goobaha shaqada iyo goobaha gaar ahaan goobaha warshadaha hilibka. anigu kama shaqeeyo ma aanan tegin, laakiin wax xog ah oo aad haysid ma jirtaa wasaaradda caafimaadka oo kale ama gobolka Minnesota inay sharciyo badan ka soo saarayaan? hadda waxaan maqlayaa mid ka mid ah kambaniyada magaalada in qaabkii laymankii wax laga bedelay. arrimaha noocaas oo kale wax xoga ma u haysaa wax isbedela in lagu samayn doono si shaqadiina ay u sii socon karto, dadkuna ay caafimaad qab ay ugu noolaadaan uga shaqeeyaan shaqada? anigu gaar ahaan hadda macluumaad gaar ah oo aan ka hayo ma jirto, laakiin waxaan ogahay markii arrin ceynkan oo kaleeta ay dhacdo guud ahaan liskama yiraahdo meeshii ha lagu noqdo ilaa la waafajiyo wixii sharciyaal ahaa oo gobornarka iyo madaxda gobolka ka soo baxay dariiqeeda ilaa la waafajiyo ma ogiye. sidaa la socoteed maalintii la yiri 2 mitir waa iska isku jirsadaan ayaa dukaamadii oo dhan waxaad arkaysaa next day markaan tagnay kulli dhulka calaamadaysan, calaamado yellow iyo kalara ah loo suubiyo qofka meeshuu istaagay. marka wadankaanayta ceeykaas waa sharci hadduu soo baxo marka ugu horeyso sharciga la waafajinayaa wixii. marka iyadoo la rabo in dhaqaalihii la soo celiyo, hadda qof xanuunsan shaqo laguma soo celinayo oo kaala la maranayo. hadda waxaa la sameeyay xataa dadka markay shaqada galayaan in xumada laga baaro oo albaabka dad taagan yihiin oo qandho laga fiiriyo oo la warsado wax qufac ah iyo ma jiraan iyo wax qandho ama isku aragtay waa qofkii shaqada galaya. marka shaqada ha lagu noqdo markii la dhaho waxyaabo badan ayaa la jiro. waxaa kaloo hadda waa aragteen mar walba laga hadlayaa dadka hala baaro, qofka hala baaro inuu negative yahay hala hubsado. taas waxaa loola jeedaa meesha dadka ka wada shaqaynaya inayn xanuunka isku fidinin. marka hala rabaado oo gobolka iyo wadankaba ha rabaado in dadkii shaqo lagu wada noqdo, laakiin ku noqo iyadoo waxba la sameeyay ma dhacayso saan isleeyahay. kolley waxaa lala shaqaynayaa marka companiga iyo dowladda public health departmentka iyo companiga wada shaqaynaya, isbedel weyn aa dhacaya. hadda waa maqlaysa xataa dayuuradaha waa maqashay dayuurada haddii la rabo in la soo celiyo 4 kursi oo dayuurada waxaa la yiri labada gees hala fariisto, 2 kursi oo dhexda hala baneeyo. yani waxaa loola jeedaa marba la yiri wadanku uu leeyahay 2 yaard ha la isu jirsado, 4 qof dayuurada hadday isla fariistaan hal leen ay isla fariistaan sharciga aad soo dejiso ma aadan fulinin. marka wadankan arrintaas xoogaa ma dhacdo. wixii sharci ay soo dejiyaan, wixii ay talooyin ay sameeyaan, waxay haddana waxay raacaan in sida uu ahaa loo hirgeliyo. waayahay sidoo kale dadka raba inayna soo wacaan barnaamijkan waxay iga soo wici karaan haddii lahayd ma nambarkaas shaashadda ka muuqda ayaad naga soo wici kartaa. wixii su-aalah oo aad rabtaan in aad weydiisaan asli nambarkaas aad naga soo wici kartaan haddii lahaydmo. sidoo kalena waxaan rabaa inaan idin tuso shabakadda hay-adda Previa Health oo aad arrimaha caafimaadka wixii aad u baahataan ama hadday noqoto kaar caafimaad aad ka dalban kartaan haddii ilaahay idmo, haddii aad dabcan ku dhaqan tahay gobolka. telephone numberka ama 1-800 numberka na Previa Health waa numberkaas haddii ilaahay idmo. barnaamijkayga caawa waxaa noogu marti ah asli ayaa noogu marti ah oo iyadu ah la taliye xagga caafimaadka ah la taliyana la ah hay-addaasi Previa Health. barnaamijkaygana waa barnaamij gaara, waxaanu uga hadlaynaa howlaha la xiriira caafimaadka gaar ahaan xanuunkan COVID-19ka ama coronaviruska. haddii aanu kusoo dhawaano gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka, maxaad oran lahayd asli bulshadan dabcan ku dhaqan gobolka oo dhan gaar ahaan kuwa hadda luuqadayda fahmaysa ama dadka Soomaalida ah arrimaha ku saabsan xanuunkan? su-aasha aan rabay inaan ku weydiiyo waxay la xiriirtaa xaggee buu qofku la xiriirayaa hadday tahay ka dhinaca wasaaradda caafimaadka gobolka Minnesota, maadaama dadku ayan ku hadlan luuqadda afka Ingiriisiga dad badan oo ku hadlan jirin, xaggee ka heli karaan dad ku hadla afkooda oo ay su-aalo ka weydiin karaan xanuunkan ku saabsan? maxaad ku oran lahayd, maxaad jeceshahay inaad fariin ahaan aad u dirtid dadka guud ahaan dhegeysta idaacadda KZYSLB iyo dadka hadda
nala socdaba. horta reer Saint Cloud axmedow barnaamijkii aan sameynay ee wacyigelinta ahaa labaduba waxaa ku qornaayeen 2 telefoon number haddaa xasuusatid si wanaagsan hal telefoon waxa weeyaan waaxda caafimaadka oo markaad sheegaysid waa ugu celcelisaa dadka waa waaxda caafimaadka marka 7 subaxnimo ilaa 7 fiidnimo ayay furan yihiin line-kana dad Soomaali ah fadhiya oo su'aalahaadii kaaga jawaabayo oo isla markiina isku dayay inay kugu xiraan ma aragtay meelaha markaas ay u baahan tahay qofkii kaar caafimaad u baahan in laga caawiyo isagana telefoonkii hadda waa taad siisay waana uu ka mid yahay wacyigelintii reer Saint Cloud aan u sameynay berigii hore qofku wuxuu u baahnaa xafiiska hadda laakiin maadaama xanuunkan uu dhacay waxaa la ogolaaday nasiib wanaag in qofka asagoo gurigiisa joogo uu telefoon dirsado oo sidaa kaar caafimaad loogu sameeyo marka dadka dhan waxaan kula talin lahaa walaalayaal kaar la'aan ha ahaanina waa waqti aad xasaasi u ah waa waqti qofka uu daryeel u baahan karo anytime marka badina dadkeena kaararka lacag la'aan ay ku helaan oo ma aragtay maadaama dhaqaalaheena uusan aad u buurneyn waxay u badan tahay dadkoo dhan in ay lacag la'aan ku helaan qofkii lacag la weydiiyana wax badan inaan la weydiinin oo ilaa $50 ama wax ka yar bishii la yiraahdo iska bixi marka kaar la'aanna ha noqon inaan leeyahay qof walba waa inuu kaar raadsado arrintaanayta coronavirus hadda ilaahay aan horta tala saaranaynaa ilaahay ha naga badbaadiyo oo ma aragtay intuu hayana allah ka caafiyo laakiinse aan dadaalno oo macluumaadkii nala siiyey oo caafimaadka ah aan wada raacno talooyinka gobolka aan raacno waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan inaan ka fogaano qofba qofka kale uu ka fogaado ugu yaraan 2 yaardi ama 6 dhudhunka waa intaas 6 dhudhun aan ka fogaano qofka noogu xigo dabadda markaan u baxayno yaanan u bixin dabadda iyadoo loo baahan yahay ma ogi sida berigii hore oo la iska soo wareegi jiray maya adoo u baahnaan dabadda ha aadin dabadda marka aadaysid is habee maxaan dabadda u aadayaa waxaad soo samaysanayaa raashin aan soo iibsanaa raashinka maalinlaha u iibsanin waan ogahay dadka qaar inuu dhaqaalahooda u ogolaanaynin inay bil alaabteeda hal mar soo iibsadaan laakiin at least 3 cisho ama week haddaa soo iibsatid ayaa ka wanaagsan intaa maalin walba bixi lahayd qofka baxaya waa inuu noqdo oo guriga hal qof inuu u baxo suuqa u aado qofkaasna inuu noqdo qof waayeel inuusan noqonin lianna waayeelka waa khatar ugu jiraa inuu xanuunka si sahlan uu hadhowto dhibaato uu gaarsiiyo waa inuu noqdo qof ma aragtay dhalinyaro ah oo asaga ma aragtay xanuunka iska celin kara hadiiba ay dhacdo inuu xanuunka ku dhaco qofka baxaya waa inuu afdabool xirtaa sanka iyo afka waa inuu xirto meesha uu tago dadka jooga waa inuu u jirsado 2 mitar alaabtiisa markuu soo gato oo guriga uu yimaado oo alaabta iska dhigo waa inuu farihiisa si fiican biyo iyo saabuun ugu dhaqo asoon wax kala taabanin gacmahaadana aad ka ilaalisid mar walba intaad banaanka joogtid afkaada iyo sankaada iyo indhahaada inaadan ku taabanin taasoo loola jeedo in xanuunka laga yaabo uu kaa soo raacay xataa bahalka aad riixaysid oo alaabta aad marka alaabta lasoo qaadanayo meel yaroo aad ku tiirsato gacantaada aad saartay marka gacmahan farahan waa aaday muhiim u yihiin nadiifiskooda aaday muhiim u yihiin sidoo kale guryaheena xagga nadaafadda inaan ku dadaalno biyo iyo saabuun miisaska meelaha cuntada lagu googoosto kulli ma aragta xagga nadaafadda inaan iyadana xoojino haddii ilaahay yiraaho calaamadaha xanuunka haddaan isku aragno marka hore gurigaada isku karantiin dhexdiisa haddaa calaamadaha isku aragto qol gooni ah inaa qaadatidaa fiican masquul gooni haddii la helaayo iyadana way wanaagsan tahay inaad sanka xiratid oo bar walbaba sanka iyo afka kuu xiran yahay waa adoo gurigaaga jooga dadkii guriga kula joogay ayaad iska karantiinaysaa hadduu duray caadi noqdo kaa baxna waa kaa haddii arrinta ay iskugu ma aragtay ay siyaadana si aadan dadka kale ugu fidinin marka dadaalka wuu badan yahay insha allah waxaan rajaynaynaa in culayskan dunida haysto uu ilaahay naga wada dul qaado dhammaanteenba dadkeennana ilaahay badbaadiya gaar ahaan bisha ramadaan fadligeeda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آد يا آد آيات أمهات سنتحي أصلي أو بلشدة سومالي ذا جودحان قبل كان مينيسوتا وحبذا
oo wanaaga la qabata. aad baan kaaga mahad celinayaa anaga naftigeena ka idaacad ahaan xiriirka aanu leenahay muddo badanna weliba dadka magaalada St Cloud adeega aad u qabanayseen ah in ay helaan meel ay kaarka caafimaadku ay ka heli karaan. xafiiskiinana anigoo ayaan iga ahayn ammaan waxa weeye xafiis gobol magaaladeeda ka amaanan oo number 1 aan u malaynayo inuu ka yahayba meelaha kaarka caafimaadka u buuxisa dadka. marka aad baan kaaga mahad celinayaa. waxaan rajaynayaa bal arrimahan coronaviruskana inaanu si wacan aanu idinkala shaqeyno si bulshada looga wacyigeliyo. waxaan rabaa inaan idin tuso insha allah website-ka ururka hay-adda Previa Health aad kala xiriiri kartaan. waa numberka 1855 waxaan filayaa waa 66 nambarada halkaa ka muuqda 7873 numberkaas haddaad ku sugan tahay Minneapolis area, St. Paul area iyo meel walba aad ku sugan tahay numberkaas ayaad kala xiriiri kartaa Previa Health. sidaasoo kalena bartooda YouTube-ka haddaad aad tagtid waxaad ka arkaysaa videoyaal badan oo la xiriira macluumaadka caafimaadka iyo adeegyada ay qabtaan hay-adda Previa Health. aad baan idin salaamayaa adiga iyo dhammaan shaqaalaha hay-adda Previa Health iyo adeega aad u qabataan. intaas ayaan ku ekeynayaa insha allah barnaamijkayga caawa dadka ka dhagaysanaya idaacadda KZYSLB. haddii aad wax su-aala a qabtaan oo ku saabsan barnaamijyadan waxaad igala soo xiriiri kartaa nambarkayga gacanta 62323866. haddii aad u baahantaa gaar ahaan kaarka caafimaadka si aan kuugu xiro ururka Previa Health, ama haddii aad wax su-aala a qabtid insha allah waxaan rajaynaynaa aslina inay barnaamijyo kale ay nagala qayb qaadato oo ku saabsan wacyigelinta bulshada. xaalad walba aad ku sugan tahayna anagu ma ogin haddaadan adiga noo soo sheegin haddii ilaahay. marka aad baan idinkaga mahad celinaya. aad baad u mahadsan tahay asli. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waayahay barnaamijkayga intaasaan ku gabagabeynaynaa haddii ilaahay idmo. wixii su-aalaad qabtaan nambarkaas ayaad igala soo xiriireysaan insha allah, gaar ahaan su-aalaha la xiriira arrimaha coronaviruska. annagoo markaasi idinku xiri doono dad aqoon u leh oo ay ka mid tahay asli oo idinka wacyigelin doona ama wixii fariimo ah idinka siin doona haddii ilaahay idmo. barnaamijyadani waxay noqon doonaan barnaamijyo taxano ah oo aan bulshada idaacadda dhageysata iyo bulshada Soomaaliyeed ay ka dhageysan doonaan raadiyaha haddii ilaahay idmo. intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij ku xiga oo anigoo Axmed Laariya waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.